deegaanka Xaaji Kheyr oo ka tirsan degmada Dangoryo ee gobolka Nugaal ayaa xalay waxaa ka dhacay shil gaari kaasi oo ku dhintay mudane ka tirsan wakiilada Puntland. xildhibaanka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Cali Axmed Maxamuud kaas oo ku magac dheera Cali Tabliiq. sidoo kale waxaa shilkaasi ku dhaawacmay xildhibaan Cabdiqaadir Saalax Cali Guuleed iyo Dr. Ciise Jaamac Maxamed. xildhibaan Cabdiqaadir Saalax Cali Guuleed ayaa isna ka tirsanaa golaha wakiilada ee Puntland, waxaana geerida xildhibaanka ka tacsiyeeyay madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdilaahi Deni iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Axmed Saciid. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku saabsan dhibaatooyinka soo laabta ee ka dhaca wadooyinka maamulkaasi Puntland. mana ahan markii ugu horeysay shilal noocan ay ka dhacaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Nugaal, waxaana inta badan ku dhinta dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan isla maamulkaasi. dhinaca kale wararka naga soo gaaray magaalada Garowe ayaa sheegaya in mas'uuliyiintii uu dhaawac ka soo gaaray shilkaasi lagu dabiibayo isla magaalada Garowe.